kulanti wacan u wanaagsan daawadayaal idilhantiin baa kusoo dhawaada barnaamijka taariikhda dunida oo aad ka daawataan janalada halgan shacab miidiya iyo rajaside. waana barnaamij dabcan looga hadlo taariikhda iyadoo hadba waddan lasoo qaato. haatan waxaan ku eegeynaa taariikhda dhulweynaha ruushka annaga oo dul istaagi doono soona faagi doono xogo badan oo aadan ka ogeyn waddankaasi. waddanka ruushka waxa uu ku fidsan yahay qaaradda bariga yurub iyo waqooyiga aasiya. dalkani waxa uu ku fidsan yahay laga bilaabo badda baltiga ee galbeedka ilaa iyo badweynta basifiga ee bariga iyo badweynta artiga ee waqooyiga ilaa iyo badda madow iyo badda kasbiyan ee koonfurta. ruushku waxa uu daboolaa 7,125,191 kilomitir oo laba jibaaran ilaa iyo 6,612,073 oo iskuweer ah oo u dhigma in ka badan 8 meelood meel dhulka la degan yahay. waxa uuna ku fidsan yahay 11 soonayaasha wakhtigan, wuxuuna xuduud la leeyahay 16 dal oo madax bannaan. moscow waa caasimadda dalkaasi waana magaalada ugu weyn. magaalooyinka kale ee waaweyn waxaa ka mid ah St. Petersburg iyo Novosibirsk. ruushka waa waddanka ugu weyn adduunka, waana waddanka 9aad ee ugu dadka badan, sidoo kale waa waddanka ugu dadka badan Yurub. waddanka waxa uu ka mid yahay kuwa ugu shacabka tirada yar caalamka marka loo fiiriyo baaxadda dalka. qiyaastii kala bar guud ahaan dalka waa dhul duur ah, waxaana ku nool 4 meelood meel tirada guud ee dadkeena oo ka badan 146.7 milyan. ruushka wuxuu maamul ahaan u qeybsan yahay 85 qeybood oo federaal ah. magaalada caasimadda ee Moscow waa magaalada ugu weyn Yurub iyo nawaaxigeeda, waxayna ka mid tahay kuwa ugu waaweyn adduunka oo in ka badan 20 milyan ay degan yihiin. ruushka waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay dal awood leh oo leh ciidanka labaad ee ugu awoodda badan adduunka iyo kan afraad ee ugu qarashka militariga sarreeya, maadaama ay tahay dowlad hub nuclear ah oo la aqoonsan yahay haysata. waddanka waxa uu leeyahay kaydka hubka adduunka ugu weyn. dhaqaalaha dalka waxa uu ku jiraa kaalinta 11aad ee ugu weyn dunida oo dhan marka loo eego GDP-ga iyo kan 6aad ee ugu weyn marka loo eego PPP. kheyraadka ballaaran ee ruushka laga helo macdanta iyo tamarta ayaa ah kan ugu weyn adduunka, taasi oo ka dhigaysa mid ka mid ah kuwa ugu horeeya markaasi soo saarista saliidda iyo gaaska dabiiciga ee adduunka. ruushka waxay martigelisay tirada 9aad ee adduunka ugu tirada badan ee UNESCO goobaha markaasi dhaxalka adduunka, isla mar ahaantaana lagu qiimeeyo heer aad u sarreeya ee heerka horumarinta bini'aadamka. ruushka waxa uu leeyahay nidaam markaasi daryeel caafimaad oo caalami ah iyo waxbarasho jaamacadeed oo bilaasha. waa xubin joogto ah oo golaha amniga qaramada midoobay, xubinna ka ah SCO, G20, golaha Yurub, OPEC iyo hay-ado kale oo caalami oo badan, iyo sidoo kale inay xubin ka tahay hoggaanka markaasi CIS-ta iyo xubno kale oo markaasi muhiima. mas-uuliyiinta ruushka waxay kordhiyeen ololahooda argagaxa leh ee dhanka markhaatiyaasha Yehowa, iyaga oo xiray oo xabsi geliyey inay ku dhaqmeen caqiidadooda. mas-uuliyiinta Yurub waxay cambaareeyeen silcinta markhaatiyaasha Yehowa ee ruushka. waa hagaag daawadayaal, inta ayaa kusoo afmeeraya barnaamijkii taariikhda dunida oo aad kala socoteen janalada halgan shacab miidiya iyo rajaside. waa barnaamij markaasi toddobaadkiiba 2 mar aad ka maqashaan janaladani oo markaasi ah maalinta Axadda iyo maalinta Talaadada, iyadoo aan barnaamijkan ku eegno taariikhda guud ee dunida, gaar ahaan inaan markaasi waddan usoo qaadano si aan markaa ugu bidhaamino daawadayaasheena hadba waddanka aan doonayno in aan markaasi
u lafagurno, iyadoo aan soo qaadano taariikhda guud iyo waxyaabaha dalkaasi laga ogyahay iyo waxyaaba aan laga ogeyn oo u baahan soo faagitaan iyo in bannaanka loo soo xaaqo. Intaan ku kulmayno barnaamijkiisa xiga, nabadgelyo.